السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته خيارات الأمانة والسلامي درسينا ما أنتوا وحين قادنا هدي إنترنت وكا عسلاده ببروسر كمركا عصوفرتو إسترا إنترنت كشو هدي يقول هذا this site cannot be reached أما the connection has been timed out لعل هدي أي كوكو دعدو سيدي أين حل وقعنا أما أين أحلنا si aynu u helo internetka waxaynu sameynaa in aan laba qaab aynu u mari doonaa in aynu ku xalino aynu kaga gudubno dhibkan qaabka koowaad waa inaga oo soo furana commandka kadibna intan ku qorayna qaabka labaad waxaynu isticmaali doonaa nambarada halkan inooga muuqda hadaba cashirkeena ayaynu isku bilaabnaa marka ugu horeysa qaybtan searchka ayaa tagaysa kadibna waxaad ku qoraysaa cmd kadibna enter ayaad oranaysaa kadibna markuu boxkan ku soo baxo waxaad ku qortaa inta aan halkan ku qoray intan sare ayaan isticmaalnaa qaabkan koowaad ayaan marka hore isticmaalnaa waxaanu qoranaa ab config/release kadibna enter ayaan taabanaa kadib hoos ayaan iyo deganaa marka labaadna waxaanu qoranaa ab config/flash/dns kadibna enter ayaan taabanaa markan saddexaadna waxaanu qoranaa ab config/renew inuu dib inoogu cusbeysiyo kadibna enter ayaan oranaa markaas waa kaas imaka uu inoo dhameeyay haddii imaka aan islaahdo gal internetka wuxuu ii noqonayaa mid fudud oo caadi aan isticmaali karo haddaba qaabka labaadna aan idin tuso qaabka labaad waxaad tagaysaa qaybtan yar searchingka hoose waxaad soo furaysaa control panel kadib control panel markaad tagto waxaad tagaysaa control panel kadibna halkan waxaad ku dhufanaysaa network and sharing kadibna halkan wifi-ga magaciisa ayaad ku dhufanaysaa wifi-ga magaciisa kadib markaad ku dhufato boxkan yar ee ku soo baxa waxaad ka doorataa properties markuu properties ku soo baxo halkan soo tiri 1 2 3 4 tan hoose ku qorantay internet protocol version 4 tcp/ipf4 ayaad ku dhufanaysaa kadibna waxaad ku sii dhufanaysaa properties kadib halkan aad u jeedo ayaa waxaan ku qoranaa waxa halkan inoogu qoran haddaba si aynu ku qorno marka ugu horeysa waxay taagan tahay obtain kadibna waxaan use ayaan ku dhufanaa calaamadda tictire xaggan sare ayay saarantay marka hore kadib xaggan hoose ayaynu keenay si ay meeshu inoogu banaanaato kadib waxaanu sameynaynaa in aynu ku qorno kan sare aynu hor qorno kadibna ka hoose aynu qorno waxaad qoraysaa 208 kadibna godkan labaad ayaad imanaysaa waxaad ku qoraysaa 67 godkan saddexaad ayaad imanaysaa kadib waxaad ku qoraysaa 32 godkan afraadna waxaad ku qoraysaa 220 godkan hoose ayaad imanaysaa qaybtan hoose ayaad imanaysaa kadibna halkan waxaad ku qoraysaa 208 badanaa inta hore waa iskaga mid 67 220 iyo 220 kale kadib intaa marka aynu qorno waxaan ku dhufanaa halkan validate settings upon exit ayaad saxa saaraysaa kadib halkaa markaad saxa saarto okay ayaad odhanaysaa kadib waad iska soo xidhaysaa kadib wuxuu gelayaa loading ama detecting problem ayuu sameynaya kadib intaa uu detecting problem sameynayo waad iska sugaysaa kadib close iska dheh haddii aan ku noqono kana close iska soo dheh kana close iska soo dheh haddii aynu imika tagno pagekii aynu refresh nidhaahno waxaad arki doontaa isagoo si toosa khadkii inoogu yimi ama si toosa aynu u galay waa aragtaan si toosa ayuu pagekan refresh u noqday bal haddaba kan kalena tijaabiyo kan kalena refresh aan idhaahdo waxaad arkaysaa in labadii page bay refresh caadi u soo baxeen cashirkeena intaas ayuu ku koobayay ha ilaamin channelkeena subscribe iyo like saarto insha allah waxaan filayaa inaad ka faa'iiday wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu